Canada joogo oo meel baraf meel aan joogo ayaa hadda goor waxaa lagu soo eeday asoo wasiir ah badii uu tagtay aniga marka sharciga waa bartay sharciga badahana waa qaatay oo la yidhaahdo law of the sea research aan sameeyey soomaalida wax saddex maraysa arkay alla sideeda waxaa ulaysa dadka kuraafaadka cawaanaha markaan research sameeyey article aan soo qoray aan asoo ku difaacay aan le waxaa la sheegaa been waa badda Soomaaliyeed waa arrin soo jirtay ilaa waqti badan xukuumadihii madaniga ahaa ee 1960 ilaa 1969 maysan jirin laakiin waxay bilaabatay 1972 xukuumadii militariga ahayd ee barigaas joogtay ayaa waxay samaysay sharci la yiraahdo Somali Territorial Waters 1972 waxayna ku soo qortay waterska Soomaaliya inay yihiin 200 oo territorial water 200 nautical mile wax la yiraahdo 200 nautical mile waa sida ay tahay badeenu inta aan anagu aan kana ganacsan karno kana maxal yiraahdaa waxna ka qodo karno inta aan maxal yiraahdaa baashi aan leenahay laakiin adduunyadu international law-ga 72 wax regulation ama wax maxal yiraahdaa baashi ah muusan u lahayn badda wax sharci adduunyada ka jira ma jirin adduunyada waxaan sharci ka jirina waa xoog cidii navy leh ama cidii baashi leh wax sharci kama jirin 1982 ayaa shirci caalami adduunyada isku timid oo hay'adda qaramada midoobay ay ka ahayd garwadeen oo la UNCLOS waxa weeyaan waa United Nations Convention for Law of the Sea UNCLOS 82 adduunyadu waxay go'aan ku gaartay wixii intaas ka dambeeyay 12 nautical mile inay tahay territorial waterka dal walba Soomaaliya maysan saxiixin way diiday dadkii nooga qayb galay shirkaas waxaa ka mid ahaa Professor Tuuriyare oo aad taqaaniin oo ahaa hormuudkii kulliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed markay ka soo tageen laakiin Soomaaliya 82 adduunyadu markay wada saxiixday dawlado yar ayaan runtii saxiixin dawladahaas runtii waxay ku tashanayeen awood ayaga ay leeyihiin haduusan sharciga ku ilaalin waa inay shantaada ku ilaaliso adduunku waa intaas u dhaxeeya America kale ma saxiixin waxay leedahay Navy leedahay Marines leedahay waxa waters adduunka jiro dhan ayada dhex taagan ba maxaa la maraakiibta dhex taagan kadib anaga 1989 ayaan waxaan sameynay sharci oo law number 37 la yiraahdo ee Soomaaliya ku saxiixayso badda in ay tahay 12 nautical mile oo qaadanay 82 go'aankii aan diidnay sharcigaas uu soo baxay laakiin 1990 muusan marin faafinta rasmiga ah oo ahayd inuu official law noqdo laakiin ilaa hadda waa sharci kaliya aan haysano adduunyadan ay ku dhaqanto intaas markii laga soo tago waxa dawladihii qarankeena waa burburay kadibna waxa la galay dawladihii ku meel gaarka ahaa ilaa ay maxal yiraahdaa soo gaarto marka waa laba shay inaa u baahantiin fahamtiin waana highly technical iga rala aada kadib 2009 laba shay marka anaga naloo yimid waana la qabsaday waxa la yiri sidaad badiina aad wax uga soo saarataan waxaad u baahantiin inaad register gareysaan wax la yiraahdo EEZ kiina exclusive economic zone kiina haddaan register gareynina wax idii hagaagay batroolna kama qodan kartiin kalluunna kama qaadan kartiin intaas kaliya kuma sinee nin kasta oo qashin wada ama nin kasta oo sun wada badiina waa ku soo shubi karaa adinkuna awoodii isku haleynaysa aad u sharci ku ilaalin awoodii aan isku haleynayna awoodii waa burburtay ciidankani Navy waa burburay wax walbana waa burburay pressure aan la ku saaray Cabdiraxmaan 2009 waa asagana arinta wax la continental shelfska oo anaga iyo xuduudda Kenya aan leenahay ayuu heshiis wuxuu kala galay wasiirka arrimaha dibadda ay soo ansixiyeen golihii wasiirada xilligaas joogay mudane Umar Cabdirashiid hadda baashi ah iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed run ahaantii heshiiska markuu ansixiyay markuu soo saxiixay waa tii la isku qabsaday buuq ay ka istaagtay watuu baarlamaanka diiday watuu Sheekh Shariif yiri baarlamaanka warkiisa lagu ma jiro laakiin run ahaantii ani waagaas waxaan ka shaqeynayay wasiirka arrimaha dibadda xoghayn u ahaa runtii anaga ku qornay inaan saxiixno laakiin security council-ka ayaa ahayd warqadda in loo diro warqaduna international law wuxuu ku shaqeeyaa haddaysan labada dal oo wax isku haysata haddaysan ka gaarin is-afgarad waxa la isku haysto adduunyadu inay xukmiso diyaar uma aha golaha ammaankaan kula hadlayn maxkamad maxaa la yiraahdaa caalamiyan kula hadlayn waxa nimankan xukunka waa ka tageen ra'iisul wasaare Farmaajo yimid ra'iisul wasaare Farmaajo rag la shaqeynaan kamid ahaa
waxaa wasiirkiisa kalluumaysiga noqday nin la yidhahdo maxamed macalin xasan. maxamed macalin xasan nin runtii waxaan aqoon u lahu ahaa, waa baxay wuxuu tegey jaamacad ku taala ingiriiska oo la yidhaahdo Stratford University, wax noocaas la yidhahdo. niman khubarahu keenay, maabisuu noo keenay. mudane farmaajo asoon dhammayn shaqadiisii asagana xil ka tegey. xilligii waxaa la yimid cabdulle cali gaas, waxaa lagu soo daray road mapka golaha wasiirada anagoo fadhina waxaa noo yimid allah u naxariisto muuse nuur amiin oo abuukaato ahaa, iyo waxaa noo yimid jenaraal faarax qare aa noo yimid. ayaguna runtii waxay dhaheen waxaan rabnaa in laga saaro road mapka waxaa la yidhaha EEZ. ugu dambeyntii saan isaga dabalaalacshoomayna markii dambe fagaa laga siiyey, waa laga saaray. kadib madaxweyne xasan sheekh oo runtii anaga xafiiskiisa aan ka shaqaynayay, iyo mar labaad maxamed macalin xasankii oo inta wasiirkii ka tegey xafiiska madaxweynaha agaasimaha aniga xilka aan kala wareegay. intii xilka aan kala wareegin muddo 2 sitimaan ayaan runtii subax iyo galab iyo habeen waxaan ka shaqaynaynay inaan maabiskii aan ku laabano oo qariidooyinkii iyo wixii iyo meeshaan weeyaan halkaan aan isku haysanaa aan niman u qabana sharci yaqaano ah. ugu dambeyntii waxaan gaarnay annagu Soomaaliya siday ugu dacwooto baashi ah halka wax aan helnay oo sharci ah oon cuskanno wuxuu noqday warqadii Cabdiraxmaan Cabshukuur u saxiixay. isla maalintaasna anigu runtii madaxweynaha hadda joogan la shaqaynayay, isla warqadii aan qaadnay, xeer ilaaliyaha loo gudbiyey, golaha ammaanka nuqul la siiyey. subaxii dambena waxaa la geeyey maxkamadda garsoorka ee adduunka ee la yidhahdo ICJ ee maanta taallo. run ahaantiina haddii maantaas ay rajo leedahay badda Soomaaliyeed in la soo celiyo oo sharci lagu soo celiyo, ninkan walaalkay oo saaxiibkay inta kaliya uu maxal yiraahdaa maanta uu saxiix waaye, waana mahadsantihiin. asana laga rabaa inuu dhamaystiro. waxaan rabaa inaan waxyar ka dhawaajiyo arrin uu gudoomiyaha sheegay oo mar kasta lagu xiriiriyo aniga magacayga. dhowr jeer horena waan ka hadlay. dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa maadaama dawladnimada ay nagu cusub tahay, markay nagu cusub tahay 60 sano dawladnimada ma weyna, wax weyn maaha. waxa la yiraahdo collective responsibility ama mas'uuliyad wadareerka way xisaabtan ugu jirto. dawlad markay timaado waxa la yiraahdo waxa jira mas'uuliyad wadareed. waxaan rabaa marka si kooban inaan u sheego sida arrintaas ay u dhacday sideedaba. aad waxa uga hadlay iyadoo tafaasiil ah gudoomiyaha waana ku faraxsanahay dawladda maanta jirta inay ka faa'iiday go'aankii aan anaga 2009 gaarnay. sababtoo ah laba dawladood markii muran ka dhaxeeyo meeshan beelo ma aha isdagaalay oo ugaas inta loogu dhexaadinayo ma. laba dawladood markuu muran ka dhaxeeyo saddex wada kaliya u furan inay wax ka dhaxeeyo ku xaliyaan. haddii qof mid afraad ii keeno waa wax cusub adduunka aan ka jirin. koow labada dawlad inay muranka ayaga dhexdooda isaga filnaadaan oo iska xaliyaan. inay daraf saddexaad gaar ahaan institutiono ama hay'ado dawliye ka wada tirsan yihiin inay u bandhigtaan ama dawlad ay ku kalsoon yihiin inay u bandhigtaan. mid saddexaad waxa waaye inay international jurisdiction aadaan, garsoor ama maxkamad caalamiya inay tagaan. markii dawladda Kenya nagu qabsatay annaga arrintaas la kili aniga ma joogin magaalada. waxaan jeclaalahay wasiiro badan 38 wasiir oo cabinetka inaan ka tirsanaa inay qaarkood joogaan. madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa nool yahay maanta. ra'iisul wasaaraha asagaaba ra'iisul wasaaraha Umar Cabdishaaq Ali Sharma Arkaad waa joogaa. 38 wasiir marka laga reebo 4 dhimata Allah u naxariistay. golaha wasiirada ayaga fadhiistay oo go'aan ku gaaray oo dood ka yeeshay oo kor iyo hoos uga hadlay inay qaataan optionka koowaad oo ah annaga iyo Kenya muranka noo dhaxeeya inaan ka wada hadalno. anigu qayb kama ahayn golaha wasiirada discussionkaas galay, doodaas galay, safaran u jiray wadan kale Botswana la yiraahdo, shiraan ka qayb galay. markaan soo noqday prime ministerka normal heshiiska ama ha ahaado is afgarad ama ha ahaado agreement heshiis rasmi ha ahaado waxaa saxiixa wasiirka arrimaha dibadda oo markaas Kamaal la shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Omar oo ma joogin dalka. haddii marka la saxiixayo waa inuu prime minister ku siiyaa attorney wax la yiraahdo awood ah ku saxiixda heshiis. warqad attorney oo cabinet ka soo baxday yaani amnigaas ku saxiixay. haddii dawladdeeni maanta hadda joogtaa markay case-ka option saddexaad ay qaadatay
saddex option ay sheeg mid inaad waddanka si qancisaan inaad daraf saddexaad u wakiilato oo indhex galo ama inaad international jurisdiction aado oo maxkamad caalami ah tahay dawladda maanta joogtaa waxay qaadatay optionka ah inay maxkamad caalami aado dabcan sabab ku kalifay iskama qaadanin mar inaan tafaasiisheeda ka hadlo ayaga ka hadli doona maxkamad caalami aaday maxkamadii caalamiga ahay waxa ugu horeeyo laga fiiriyo waxa waaye idinka iyo dawladdii dariska ah muranka ma ka wada hadasheen dawladdeena waxay tiri yes waa ka wada hadalnay maxaa daliila MOU wada saxiixanay intaasoo shirna wada galnaa leeyahay sidaas hadda kayskii lagu furay maxkamadiisa haddaanan MOU-gaas la saxiixi lahayn wada hadalkaasna dhici lahayn maxkamadda caalamiga xataa maan dacwadaas ma fiiriseen lama rabo dadka in lagu xadgudbo ama la masabito ama dacaayada waxaan jirin laga sheego anigu waxaan ballan qaadayaa hortiina ka ballan qaadayaa haddii ilaahay talada dalka u guulaysiiyo in cid kasta oo Soomaali ah oo waddankan ka gashay wax takrifal awoodeed ama hanti ah in lala xisaabtamo anigaan iska bilaabayo diyaarad kalsoonidaasaan qabaa dhiiranaantaasaan qabaa inaan diyaar u ahay inay hay'ad kasta oo dawli ay baarto aniga waliya wasiiradan ka tirsana madaxweynihii ra'iisul wasaarihii waa jooga waa runtiis mudane Kamaal madaxweynaha markii la warsay Sheekh Shariif wuxuu yiri arintaas waa laga gudbay baarlamaanka markuu diiday laakiin anigu waxaan u arkay baarlamaanka inuu hay'adda ugu shareysay sharciga dalka markaas ka jirtay uma arkayn laakiin go'aankiisa ay u qaateen inuu marna sax ahaa sababtoo ah waxay ahayd guddi in loo saaro guddiga oo baaro waxa fiiri waxay yihiin laakiin si caadifad ah iyo wiilo website wax ku qoro haddana ku qorqora waxay soo tabiyeen go'aan lagu qaato unfortunately Kenya waa dalan daris nahay xuduuda naga dhaxaysa 700,000 oo Soomaali qaxootiga jooga malaayiin Soomaali hanti u taala billions of investment Soomaali yaala waxa xuquuqdeena anaga marna uga tanaasul mayno laakiin haddii anaga tabarteena aan ku qanacno dawladdii markaas jirtay inaan wada hadal ka galno oo aan Kenya la hadalno sababtoo ah looyaro lacag ku qabsanana ma haysan malaayiin dollar maxkamadda tagana ma haysan mana aaminsaneen dawladdeena transition ay awooddaas inay leedahay ee maxkamad caalami case kan ku geyso sababtoo ah maxkamadda hal riski leedahay abiil ma laha haddii laga adkaado case-ka waa Allah ku aruuriyo nabiga Allah ku wada sheegay case-ku abiil ma laha marka anaga taxadar iyo waxaan ku qaadanay go'aanka waliba aniga go'aanka waxba kama qaadan golaha wasiirada fadhiisto aniga aan joogin madaxweynahay u tageen go'aanka saasaa lagu gaaray waxaan ku saxay waxay ahayd collective responsibility wax la yiraahdo mas'uuliyad wadareed ay dawladda leedahay marka waxaan jeclahay maanta arrintaas inay cadaato waa maasintii sida sharafta leh iyo xigmadda leh oo ii dhageysateen mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo lagu eedeynayo in ay arrintan geysteen ama xilha hadayaan ama yuusan haynin waxaan u maleynayaa doodii maanta ee qareenadeenu inay si cad u qeexeen ujeedadii iyo intentionkii laga lahaa waxa kaliya oo lagu eedeynayo waxa waaye inay heshiiskan is-afgaradka ay saxiixeen anigu shakhsiyan asxiraali ahaan as mas'uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan hubaysanin waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waad arkayseen qareenadu inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay bad Soomaali lagu bixinayo ma ahayn in bad Soomaali lagu gadanayo mana ahayn sidii dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaara lagu galayo ujeedadiisu waxay ahayd oo kaliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda ee khusaysa continental shelf-ga ama qofsad qaaradeedka labada wadan si ay u gudbistaan in aan wadanka kale uusan horistaag ku sameeynin ujeedadu saasay ahayd laakiin waxa muuqda annaga aan hayna waa MOU-gan badna lagu bixinin badna lagu saxiixanin dood uu keenay ficlan oo shalay oo dhan wixii dooda Kenya waxay ku salaysnayd MOU si rabaan ha u fasirtaan
laakiin haba yaraatee ma ahayn mid ujeedadiisu laga lahaa ay ahayd in bad Soomaaliyeed